gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka waxaa ka dhacaya doorashada isreebreebka oo ay xisbiyadu dhexdooda iska soo saarayaan musharaxiintii uga qaybgeli lahaa doorashada bisha November ka dhici doonta Mareykanka waxaana dadka doorashadaasi ku tartamaya kamida Soomaali iyagoo oo u tartamaya kuraasta aqalka Congress-ka Mareykanka iyo waliba kuraasta golaha Congress-ka ee gobolkaasi wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa si dhow la socday doorashadaasi isla markaana faahfaahinta inoo haya محمود عبد الحكيم محمود شروعات بعضو mahadsantahay هاي قبل كمينيسوتا maanta waxaa ka jirta doorashada wadanka Mareykanka ee loo yaqaan primary ama doorashada isreebka oo xisbiyadu ay ku soo saarayaan qofka markaasi ay doonayaan inuu u matalo doorashada guud ee wadanka Mareykanka oo bisha November dhici doonta gobolka Minnesota ilaa iyo dhowr kursi ayaa dadka Soomaalida ay ku tartamayaan golaha Congress-ka ee dalkan Mareykanka oo Ilhaan Cumar iyo nin la yiraahdo Jamaal Cabdullaahi ay ku tartamayaan waa kursi uu baneeyay Keith Ellison sidoo kale kuraasta ay Soomaalidu u tartamayaan waxaa kamid ah gobolka Minnesota golihiisa Congress-ka oo laba kursi oo kamid ah ay afar qof oo Soomaali u tartamayaan kursi kamidii waa kursigii uu ay banaysay Ilhaan Cumar waxa uu tartamaya kursigaasi Maxamuud Nuur oo Ilhaan doorashadii hore ay kaga adkaatay isaga sidoo kale kursi kale ayaa jira oo ay ku tartamayaan saddex qof oo Soomaali ah saddexdaasi qof ayaa kala ah Hodan Xasan Ismaan Cali Axmed iyo Cumar Faatax oo dhamaantood hal kursi ku tartamaya haddaba waxa suuragal ah in caawa doorashada gobolka Minnesota marka ay soo xiranto oo gobaha codbixintu ay soo xirmaan 8 fiidnimo in saddex qof oo Soomaaliyihi ay saddex kursi ku kala guuleystaan golaha Congress-ka dalka Mareykanka oo Ilhaan Cumar ay haysato fursad inay ku guuleysato iyo laba kursi oo gobolka Minnesota oo afar qof oo Soomaaliyihi ay u haystaan fursad inay ku soo baxaan haddaba dadka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa iyagu caawa doorashadan aad uga dhursugaya waliba waxa aad iyo aad isha loogu hayaa Ilhaan Cumar oo xisbiga dimuqraadigu ay cod ka siiyeen isla markaasina ay iyada hadda taageersan yihiin dhowr qof oo kalena ay la tartamayaan haddii markaasi Ilhaan ay guuleysato iyadoo xisbiga dimuqraadiga taageero ka haysata isla markaasina dadkuna ay u codeeyaan waxay noqon doontaa habeen taariikhi ah oo qofkii ugu horeeyay Soomaali ah oo muslina oo haddana Afrikaan ahi uu ku guuleysto inuu ka mid noqdo golaha sharci dejinta ee wadanka Mareykanka Maxamuud Mascade VOA Minnesota aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Maxamuud Mascade